ilaa aad ka naqato dadka midka ugu liibaanta badan. Waxaad ka dhigtaa farxadaada mid aad Allah ku shukrinaysid subxaanahu wa tacaala. Murugahaaga waxaad ka dhigtaa sabar aad ku sabraysid, aamusnaantaadana mid aad ku fikiraysid. Hadalka aad hadlaysidna waxa aad ka dhigtaa mid aad Allah subxaanahu wa tacaala ku xusaysid. Noloshaadana ha ahaato mid aad Allah subxaanahu wa tacaala ku adeecaysid. Waxaad noqotaa sidii shimbirkii cuntadiisa ay u imaanayso subax iyo galabba, asigoon haminaynin, aanan aad xoog u saaraynin wixii uu beri cuni lahaa, aanan dhibaynin axad. Ha ahaado qalbigaaga sidii luulka oo kaleeto, mid aan xambaarsanayn xiqdi iyo xaasidnimo. Ku ahaw adduunka mid marti ah ama mid waddo goynaya oo kaleeto. Hana hilmaamin inuu Alle subxaanahu wa tacaala yahay midka kugu filan mar walba, uuna nicmad badnaaday mid kale tala saarto. Waxa ay daminayaan arrimahan oo dhan wax walba oo horaya nolosha xaggeeda. Waxayna kaa badbaadinayaan maashaynta xagga nolosha, wareerka xagga nolosha. Waxayna ku barayaan waddada loo mari lahaa nolosha saxda ah. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mar walba mahadda iska leh.